kulankan oo ah Quraan akhris looga duceysanayay halista caabuqa coronavirus ayaa maanta lagu qabtay magaalada Caabudwaaq waxaana ka soo qayb galay kulankan Quraan akhriska dhalinyarada magaalada iyo culimo u diinka magaalada Caabudwaaq Quraan akhriska kadib qaar ka mid ah culimada oo la hadlay TV-ga ayaa sheegay in Quraanku daawo u yahay xanuun walba oo dunida ka dilaaca muslimiinta Soomaalida meel walba ay joogaan iyo dalkooda in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka ilaaliyo kuwa dibadda jiran Ilaahay ka ilaaliyo subhanahu wa ta'ala ummad badan ba wax u hayaan agoonta wax siiyaan dad badan oo masaakiin ah wax u soo dhiibaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aafada u jirto Ilaahay ka qaado oo meel walba ay joogaan Ilaahay ku amaansado baan Quraankan u aqrinay la ajilna Quraankan saas way dartiisu Ilaahay dartiisu Ilaahay uu ogiyo qulubteen wax ku jiro in Ilaahay dartiisa inaga taarinkaas Ilaahay uu naga warhayo subhanahu wa ta'ala aafada jirto oo dhan muslimiinta meel walba ay joogaan maanta cudurkan yar oo meel walba qaylada ka yeertay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qabto dadka muslimiinta meel ay joogaan oo dhan waxa u digaynaa in Quraanka ay akhristaan oo ay u dhawaadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aafada socoto cudurka socdo coronavirus la leeyahay iyo waxyaabo cudurada kale la midka inuu Ilaahay noo qabto naga badbaadiyo oo nooga qabto oo meesha aan kaashanayno oo anaga jundil kan way kutubka Ilaahay waa alxamdulillah Ilaahay ba muslimiin naga dhigay Ilaahay ba ku mahsan Ilaahu naga badbaadi baa leenahay waa ku duceysnay kutub Quraanka saasan ku akhrisanay kutub jaamaca Ilaahay ba ku mahsan marka insha Allah meel kasta ay joogaan muslimiintu wax ku dardaarmaya meesha u dambeysay ay tahay kutubka Quraanka loo noqdo ciidan kale noo gurmanaya iyo dawlado kale ma jiraan kana aaminsanahay Ilaahay ba ku mahsan rafciya oo ku qaada Quraanku maartu waa shay mudadka muslimiinta qadar aad iyo aad weyn u jooga way marka hadaysan Quraanka dadka muslimiinta aysan la saaxiibin oo maarta Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa aysan u ordin oo maarta asaga aan loo laaban dhibaato ayaa maarta muslimiinta ku habsanaysa sida daraadeed ayaa waxaan u fadhinaa insha Allah ta'ala Quraanka kariimka in Ilaahay subhanahu wa ta'ala bal aan ku xusno Ilaahay wuxuu leeyahay fadkuruni adkurkum washkuru li wa la takfurun anaga xusa wa idin xusahayaay maarta ana iguna shukriye maartana igu gaaloobinina oo nicamteedii ku gaaloobinina Quraanku marka waxa uu ka mid yahay xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha lagu waajib ah marka Ilaahayna uu toobad keeno oo Quraankiisa Ilaahay aan u cararno waayo fafirru ila Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelaan ahayn oo loo cararo haba yaraatee ma naqaan mana jirto mana jiri doonto marka Ilaahay baan u cararaynaa Ilaahay baan u laabanaynaa waan toobad keenaynaa Ilaahay dartiisaan Quraanku akhrisanayna inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cuduradan faraha badan oo adduunka cudurkan yar oo aan la arkayno isha aan qabanayno adduunka ka wada qaydisay meel walba dadka ay joogaan oo masaajidina laga xiray oo iskuulaadka la xiray oo muxuu ahaa hadda xaramka Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo cabday la xiray intaas inuu Ilaahay noogu dulqaado cudurkaas sidaas awgeed baan u akhrisanayna Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Faaduma Kaamil Faarax CWTV magaalada Caabudwaaq